Horso ha mahadsantahay Samira long time dadka kadib maanta aad iyo aad waa faraxsanahay aragtidaada cabshuku dadku ugu qaalisan oo Nairobi aan ku haysta kamid tahay walaashay jirtaa tahay marka cabshuku muddo waa soo wada shaqeynaa maanta oo ku wareysanaya adigu laftirkaaga wariyaha jila iyo qof abwaana oo Soomaaliga aad u yaqaanana waa tahay marka horta muddo ayaad riwaayadaha iyo jiritaankooda ku dhex jirtaa asaasankaagii markii hore ma ahayd wax oo habbigaagii ah ama aad jeceshahay Samiroy yaraantaydii ilmo waxaan ahaa ku dhashay Soomaaliya meel oo sanaag samada sanaag leeyahay ku dhashay waxaan ahay haddana ilmo la keenay caasimadii dalka hooyo Muqdisho yaraantiisii asagoo yar aan waxba kala ogeyn qax ku dul dhacay burburtay caasimadii lagu kala yaacay qayb soo carartay oo soo gashay xeryahan qaxootiga waxaan ku jiray kuwii lagu bilaabay xero qaxooti lagu aas-aasay baan ka mid ahaa meeshaas noo yara qalis dad baa halkaas ka maargaraysan doone laba soo saari karaa u malaynayaa isma lahan muuqaalkayga iyo xilliga aan ka sheekeynay isma laha kuwo badan oo islahaa waad ka weyntihiin ba haddana waxay leeyihin 2000 iyo 2000 baa dhalana laakiin aanu 2000 waa sidayda u taagnaa sida ahayd ku dhashay Soomaaliya qaxooti la keenay qaxootigii xogaa ku ababay haddana xiradii qaxooti lagu soo xiray ma lagu leeyahay hadda xiriyaa qaxootiga la xiraya anigu hore lagu soo xira ha utaanga mid leeyahay Bambaaso ka hoosta baan la ku soo xiray xira la xiray horta waa soo arkay la celiyay waxa leena geeyay meel yaa Kismaayo oo markaasi ay haysteen qabqablayaashii waxa haystay waliba nin leeyahay marka ragii habba qolo la cayrinayay qoro laga saaray qorolan la soo gelinayay marka waxa haystay ninka la yiraahdo Morgan ba haystay annagana waxa nala ku qaaday markab baan nala ku qaaday markab qaramada midoobay leedahay baa Bambaaso naga qaaday Kismaayo ku xirta dan la hayn waayay la geeyay dhulkan hadda gobol baa la isku kala qoqobay Puntland baa la geeyay oo markaas aan dhisnayn Puntland aan ahayn oo markaa jamhadii soo laabtay oo SSDFT bay ahaayeen haddana la hayn waayo waxbarashadii lagu soo kari waayay waxa la geeyay baadiye ma hawl yareen caruura waa garaaci jiray waa la kaxeeyay baadiye la geeyay baadiyaha la geeyay Samiray walaalo wuxuu ahaa baadiye aad iyo aad u kulul buu ahaa wixii sida aan ugu jiray markii dambe baadiye waan sahin weyn waan ka soo istaagay geel jiraan noqda geelaan raaci jiray ari jiraan noqda ariga raaci jiray waxaraha ugu hooseeya waan soo raaca af Soomaaliga horta waxaan ka bartayba waa dhulkii lagu celiyay dhaqan celis ahaanta lagu celiyay baan horta afka hooyo aan si fiican uga keenay mahmaayaha waan aad baan ugu dheereeyaa marka anigii halkii hooyana waxay ahayd qof aad u mahmaah badan oo haddii la soo ag istaagaba mahmaah tuuraysa haddii hooyo aan u imaadaba way mahmaahaysa hooyaday waan ka dhaxla waxaan xiisayn jiray jilliinka inaan wax jilo TV la daawado waxaana soo gaari jiray RTD kan Djibouti jamhuuriyadda baana soo gaari jiray hebelka meegaag iyaan xasuustaa wariyaasha ka soo galay riwaayadaha marka waxay soo deyn jireen Cabdi Haybe iyo Bon Xirsi iyo Ma Calaysh iyo rag caynkaas ah Samiro la soo deyn jiray aan baan daawan jiray Bon Xirsi oo kale waa jeclaa Ma Calaysh oo kale marxalad kasta oo uu jilaayo siday tahay inuu u dhigo ها si isku jijibin jiraan jecel inta saa isku taagay isjijibintii badan qaybo badan baa ka dhaxlay
ninkii la oran jiray waxaan keenay asagana cabdi haybe lambad baan asna aad uga heli jiray reer Jabuuti laftigooda caws oo kala jiri jiray nin kale oo dhintay baa jiray asna oo riwaayado badan ku jiray riwaayadii in adeer ku jiray oo kala halkaas baan ayagana ka keenay marka da'yarta ayna dhageysanaysaa ama markaas waxaan u sheegi lahaa jilinku wax ugu jiro ahaa markaan soo qaato oo aan dhalada ka soo daawado RTD ka soo daawado meel kale wax lagama daawan jirin baan dib ayaga markaan waxaan oran jiray saas boon cilaysiiri soo saas hadana isku taag wuxuu yiraahdo inkoo shana marsaam lagu jajabi xaqii baan ka keenay sheekada saas waa koobiyin jiray halkii waagi Soomaaliya arrigu iska fiican أنا أفتكر كنت بعدين دورة صغيرة وياه marka waxaa la daawan jiray shaleemooyin balaad shaleemada dhowr shilmaada ma yiride ay shilmaana ugu galay shaleemada hay shaleemada markaa tagto waxaa soo daawanaysaa film hindi aadiya oo maalmo dhagsanaa maalmo dhagsanaa markaa soo daawato habeenkii wixii ma habeenka lagu hadlay habeenkii ku xigay maalinta ku xigay waad ka sheekaysaa aadiya marka xogo aad baan maaragtay oo sheekaysiga shaleemada magaceed adaa sheegay badanayda geesa iyo mid kale oo ku taala library iyo aadiya waa mahadsan tahay shaleemooyinkii baad xasuusisay dib haddaan u laabto markii aan u taanga joognay horta yaraantaada iyo weynankaaga yaraantaada xasuus badanta wuxuu kugu dhacay meeshii la oran jiray waa la soo dhajin jiray boor weyn markii lagu soo dhajiyo baatabeelaha sidan qaybna loo soo hordhigi jiray qaybna waxaa lagu dhajin jiray safiitada badanaa guryo waaweyn iyo dabaqyo wax laguma daawan jirinoo meel yaro coosh baa wax lagu daawan jiray coosh ama jiingada yaryar baa wax lagu daawan jiray labaa loo kala qaybinayaa mid lacag uu soo xaday haysta mid xoogaa la soo siiyey saddex baan ka dhigaynaa iyo mid intaasba waayey banaanka meel yaroo baqbaqa saa uga ileeya oo la cayrcayriyo wixii loo macaaneynayo horta baxri naga taga maxay ahayn waxa abba mid yar soo habeedaba lacag usoo yar meesha kaarta ku jirtay bogta carruur baa lagu karsanayay taasna waa soo marnay oo weliba qofka gudaha ku jira wuxuu uga sheekeyn jiray kuwa kale hataa la hadal ku soo atriishadu meesha dambe oo luuqa ah bay ku jirtaa la oran jiray inta markuu soo sheego hadii taaga qadano kursigaana fadhiyo kursigan hadda wax ma aha oo mis yiriiso sidaas daasal caana boore dhagax dadkan dee barwaaqo soorarka soo gaaro qof walba mobilkiisa filan allaala ku doon marka barisamaadkii waa xasuusisay maadsan cabshiyo hadda jilaawin ba aktar heer caalami ah inaan noqoto muxuu fikraysaa horta langaab baan ka dhashay waa kuu soo wada langaab baan ka dhashay horta langaab weyn baan ka dhasho afriko dhan ba iska bahdilan haddana langaab sii hoosaan ka dhasho reer Soomaali la yiraahdaan ka dhashay reer Soomaali la yiraahdo baan ka dhashay ee jifideyda hoose langaab haday tahay hadii la dheero tahay waa reer Soomaaliyeed waan jeclaan lahaa inaan ka mid noqdo dadka maantay loo de dunida sida kuwa reer America oo kale sida kuwa reer Yurub oo kale in heerkooda aan joogo waan jeclaan lahaa laakiin waxaan ka dhashay Afrikaan baan ka dhashay Soomaali baan ka sii dhashay oo burbursan reer isku kala qoqobtaan ka dhashay sidaas baana marka xooga aan u ahay langaab baan u ahay Soomaaliyeed laakiin hamigaadu waa ku jirtaa inaan heerkaas gaaro oo maalin aan mid cadaan iyo aniga la kala tartansiyo waliba tartankan aad u jecelahay in la yiraahdo kaas iyo wiilka Soomaaliyeed ka Soomaaliyeed ba ku leh in la yiraahdo waan jeclaan lahaa inkastoo haddaba Soomaaliya ay barqad iyo ayaanla iyo rag badan ay ugu jiraan inkastoo ayna Soomaali dhexdeeda ka soo dhaxbixin ee ajaanib iyo wadamo horumar ay ka soo dhaxbixeen waxa kale oo jirta hodan Cabdullaahi baa jirta halka ka salaamay walaashay qaaliga dadku ay yiraahdaan ma isqabtaan ma xagga idinka dhaxeeya ma waa walaashay baan leeyahay iyadana maalin maalmaha kamid ah bay ugu tiri Cabdishuur Jileenka raba waan keenay aniga geeskayga ka jir maantana waa qof magac leh weeye way badan yihiin
oo ma soo koobi karo oo dad tiro badan weeye hadda laakiin dadka hadda inta aan ugu muuqata waxyaabo horta waxaa jiray waagii horeeto ani aan maqli jiray ilaa hadda meelaha qaar bay ku jiraan aan umaleynaa oo dadka ay aaminsan yihiin habeenkii cusbo lama bixiyo ukul lama bixiyo jawaa lama shalaysto gabar markii lasoo guursado waxaa lagu sameeyaa maxay waxbaa lugaha loo geliyaa waxaa kaleeto adoo horta waxyaabaha maxaa ka xasuusata mahadsanid mar kale Samiro waa caado dhaqameed oo weliba mahmaah bay u samaysteen ee leeyihiin caado laga taga cara alle leedahay iyagoo raba inaan laga tegin waxaa arki jiray xataa cashirkii waa gaar xigale guriga hortiisa caagid biyo badda laga keeno waxaa la leeyahay adoo dara reer badeed baata aad baad u taqaanaa walaa dhowr bilood markay baasha meesha ku xirnaato way cagaaranaysaa marka ha biyo isbedelaya ilbaad ka xagee biyo adigu meel dhig ama bad ha ka imaadaan ama xareed ha ahaadaan way cagaaranayaan moogtaa laakiin halkaa waxaa lagugu darayaa ilbaad ka bixidaan mujirta Samiro mid kale ku darso mid baa ariga saa u eegaysu leeyahay wari arhe xirada aad buu ariga idinku naaxay sawarta bismillaahir rahmaanir rahiim ha marka wuu fiican tahay xirada narsi leh oo kaas way leedahay moogtaa hadii kol markuu dhaqaaqo islaamtu intay boodo ilmaha xataa ku aamini weydo oo biyo yar la kacdo bay ku bilbilaysaa raadkiisa shartaada shirga alla kugu celiyo meesha ka timid cuqda iyo cawrada isla hel adigu gurigaaga alla ku celiyo waxaas nagula war balaayada kula soo wareey adigu wax dee quraafaada bas gabadheeda la joogta oo inantaayo gashaatidayo gur u jooga ah maxay daldalaysaa inta hooyadeed tiri bay qabsanaysaa hadhowtaa mido u imaanayaa shalaa la soo guursaday garo qoda iyo cawrada alla kugu celi balaayo alla kugu taa waa qori isku dhiib oo qofba qofka kale magaaladana waxaa ugu imaanaysaa ayaana waxaa u xirnaa macnaha oo yani aan aaminsanaa habeenkii aan shalaysan habeenkii aan laga dhaadhicin habeen meesha lagu gaaro waxaa laga dhaadhicin diyaraha jaray madaxna ha shalayn tinta mideedii ugu bitiga bandeeda kaa goyaysaa lagu dheer tin waa iyaga yidhaahdaa tin cawo cawada waa cawada ugu wanaagsan cawaduu dhashay habeenkuu dhashay waa tin cawo wey marka hadda dhow iska bedelay dhaqankii oo dhan waxaa kama jira quraafaad xaggaasi dhaqanka Soomaalidu aad bay ugu badan yihiin dhaqanka qaarkiis Soomaalidu way shaqeeyaan waa la shaqeystaa way badan yihiin tukaha markuu qayliyo waxaa la yiraahdaa geeri buu sheegaya gumayska sidoo kale gumayska aniga lama tusi jirinba ilaa iyo hadda baa nibca taasna walaal waa la shaqeystaa anigu gumaysta aad baan u nibca laakiin waa shimbir ilaahay habeenkii oo kale waliba markay guuxaan ama ay cido aad baa dhinacayaga loo sharaysan jiray waxaa la oran jiray hebel hadda ka horba intay saa u ciday hebel iyo hebel baa laysi saaray al raggu qaalisanaaya laysi saaray horta ma aqaan qabarka xun iyo tukaha iyo gumayska waxa isku soo beego waxbaa ka jira Soomaalida mararka qaar waxyaabaha ay aaminsan yihiin qaarna waxbaa ka jira laakiin tukuhu waa shimbirka kaliya oo mucjizada ugu caqliga badan weyn oo yiraahdaan tukow goorma wax garataa buu waa mahmaaba u leeyahay si markii laba nin isfiiriso tuka halkaas caloolay ku rifanaya labadeen haddaan isreeno kacay dhagax inaan u qaadanayno asaga leenahay see ula helaa walaalay wuu dareemaya marka isfiiriyaa si marka way ka maahmaan waxay yiraahdaan tukow goormaad wax garataa suu yiri markii laba nin isfiiriyaan dabayl baa maraysa ama bir ha qaadato mindi oo kale ama ma garanaysaa darashadihii Soomaaliya de caradan la yaab kale aluminiumka ayagoo dhan ma ahayn darashadii birihiisaan lagu mudmudi jiray ayaa mid loo bixinaya kaasna way qaadanaysaa oo waardi de walaal taas waaba quraafaadka ugu xun waa shirki weey sababtoo ah Allah baa wax waardiyeeya oo na waardiyeeya ilmaha labada fiidiyaysan bixin lama saar oo haddaba magaalada waa sidii maqribka laftigiisa ama diiniyan tahay taas ma naga hubis hadda ma baxaan maqribkii hadda ma baxaan
mid kale aan ku darsado dib baad i xasuus ii geysay waxaa jirta dee horta soomaalidu waa dudo waa reer waa sababteena hadda isku goboleeyeen wey waxa ay ku dhaqmayaan waa wixii miyiga looga dhaqmi jiraa hadda maamuladu u taagan yihiin ayaa haddana dhaqankii iyo caado dhaqameedkii ay iswataan oo saa u lahaayeen kan waxa weeye layaaho dabshidka dabshid maxaad ka xasuusataa hal mar baa la shidi jiray waka aday kuu taallaa waa ka caqli badantii baa liya kuwa dheer waa ka caqli badan san loo ridi jiray saa ma soo rida ilig xuno iga dhac ilig fiicano ii soo bax haye dee haade iyada intii loo jeestaa dabadaba loo tuuri jiray dabshidku dhinaceen horta sidaad sheegaysid oo kale baa la sameeyaa dhinaca aan joogay markaa oo miyiga ahayd waa la shidayaa markii la shido hal mid baan kaaga duwanayn markii laga boodo baa haddana qod dheer lala ordayaa baa la leeyahay lala ordayaa hawsha istunka gobollada waxay ka jirtaa dhinacan ayaan dhowti waxbaa iscaydhayrsanayay yaa garaaci le hal xaba looga hadla dad badan ba markii la dad qof baa ogahay baad oran xabad ka soo qaado anaa horta haddii Nairobi ay ka bilaabato anaa ula dheer haystee mid waa kusoo siinaya taasna dhaqan bay ahayd laftigoodana roob bay ku heli jireen see laisugu raacda waa soo fadhiiso sorio tan gabdhaha laga bixiyo waa sorio waa gabaati waa xarago saddex baa laga bixiyaa inta anigu ka xasuusto waa sooriyada iyo gabaatiga iyo weliba iyo xaragada sooriyadu waa iska markaad isoo dhaweysay ilaa maada koob shaah isiin ilaa maada cagad biyaad inaad isiin laakiin soo dhaweyntaasaa sooriya u qalanta in wax lagu siiyey bay u qalantaa salaanta qaybo badan baa waxay u qalantaa sooriyadii booskeedii kaga macaanba oo aan halmaamayaaba waxaa dhamaaba taas marka waxaan ka leenahay mahmaayada labaan u kala dhigaynaa waa mahmaayadii miyiga ka soo jeeday iyo mahmaayihii reer xamar baan u gelaynaa mid baan ugu jeclaa anugu in lagu xanto waxay yidhaahdeen oy waa la helaa laakiin indhabeel lama helo middan kale xigmadda ku jirta fiiri samiray wuxuu ku leeyahay oy waa la helaa laakiin indhabeel lama helo daanga dubato ayaa dab duugata oo waxay ahayd gabayadii waaweynaa oo markaa guba oo kale cali dhuux aadan allah u naxariistee buu ahaa ninkii bilaabay wuxuu leeyahay marka abwaankan soomaaliyeed wuxuu leeyahay baadida nin baa kula daydaya daalla kaa badane aan doonayn inaad heshaa daayin abidkaaye dadkuna moodayaan
duul wada dhasho wax u dahsoonayna dalla male aakhirana haddii loo kitaab dayay buu leeyahay waxaan ka dhigayaa ha iska dhigayaa qof wixii kaa lumay kula goobay ha laakiin ma doonayo inaad hesho Inaad horta insaanka waa idan saasay u batay waka qof oo iska kaa dhigaya inuu kula jiro wanaagaaga jeceliyo kula jiro baa haddana kuma jaxaabinayo waa iyagii ay lahaayeen kula jira kaa jira kaa jira marka caawa tallaabo u qaado meel ood u sheegato qofka wuxuu Inaad horumar samaysay, walaalkaa oo ku jecel waa u sheegaysaa waxaa leedahay aniga maanta waxaana igu soo diray markaasaa habeenkaas waxaa laga yaabaa inuu muddadaba ka tago waa ku kac marka waa ku kac soo ma jeedid dalla male aakhirana haddii loo kitaab dayay qofkaas oo kale la buujinaha ma fiicno waa eg siduu u sameeyey abwaanka waa gabay bay ahayd laakiin qaybta maahmaahdana waa loo soo qaatay marka iyagana hadda maanta wiil yar haddaan intaa ku idhaahdo ni way dheer tahay xoogaana afkaaguna waa adag yahay isjilci buu igu leeyahay isjilci walaala maxaa tirina adiga day shalay geeli kak adiga dhan kak kugaada kak waa ka dadka qaar dadka ugu weyn magaalasanee arkay waxaa waa mataqaanaa cajibiyo waxa aysan rabin inay muujiyaan inaysan aqoon u lahayn oo ay kugu soo celiyaan ay ku dhahaan war waxaas ma fahmin maxaad ka wadaa iyo hadalka aan cajibinin oo aysan rabin inay maqlaan dadka iska dabaaliyeeta maxaa tiri ismaahinta kaasoo kale maarag dadka waa dadka ugu cajiibsan waaye laakiin uu muujinayo inuu laakiin samira waxaan isleeyahay waa heer la gaara aan siri caqli ahaan qofku u gaaro sooma waa caqli ahaan ama waa xikmad gooniyahoo rabbi bixiyo inaadan cara muujinin inaada cara muujin inaadan qarraqdiyin inaada qaylin in tartiib aad dareensiiso qofkaas inuusan warkaas asaga Ah. uusa kuugu soo uuna kuu socon soomaalidu labay ka soo qaadaan dadka ama dadka waxbartay oo dhan baa dadka laba ka soo qaada dhalo maran oo foorinaysa oo foorinaysa iyo dhalo buuxda halkaanaan dhigaynaa daaqadahaanaan furfuraynaa laydha soo dhacaysa ama dabaysha ku dhacaysa tafaaruqa bay bilaabaysaa ta buuxdana way aamusantaha qofkani waa sidii la yidhi ama aamus ama wax wanaagsan ku hadal bay dhaladaani matalaysaa